maalin kadib waxaan arkay gabadhii waxaana ku dhahay aaway jawaabtii aan kaa sugayay waxay igu dhahday waan ogolahay maalintaas maalin iiga farxad badneed ma jirin waan ka soo degay jaceylka waxa uu u baahan yahay samir iyo dulqaad waxaa iigu sii siyaaday jaceylka aan u qabo gabadhii waayo markaa arko waxaan dareemayaa farxad laakiin markaa waayo waxaan dareemaa murugo muddo kadib waxaan waayay gabadhii aragtideeda waan ciishooday waxaana ila soo gudboonaaday murugo kadib waxaan arkay Shamso oo ah gabadha kaliya oo ay sirtaas ku qarsan jireen Shamso ayaa igu dhahday walaal maxaa kugu dhacay maalmahan waad murugaysan tahay markaas ayaa ku dhahay murugta iga muuqata waa jaceyl waxay igu dhahday yaa sidaan kuu galay markaas ayaan ku dhahay saaxiibada Faadumo Shamso waxa ka soo haray amakaag iyo walwal Shamso waa iga tagtay iyadoo jawaab isiinin aniga muddo 7 bilood ah ayaan wada kulmi jirnay Faadumo isla habeenkii waxaan aaday Shamso gurigooda anigoo weydiinayo Faadumo meeshay aatay nasiib darro Shamso wax jawaab ah ma aysan siin waxaan ka soo tagay iyadoo jawaab isiinin ma aqaano sababta jawaab la'aanta Shamso isbuuc kadib waxaan ku laabtay Shamso gurigooda waxaan arkay iyadoo meel kaligeeda fadhiso oo fikirayso waan salaamay salaan kadib waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacay maya waxba iguma dhicin markaas ayaa ku dhahay Faadumo muddo bil ah ma aanan arkin telefoonkeedana waa uu dansan yahay balse waxay jawaab iiga dhigtay xaqsoore waa alle wayna iga dhaqaaqday aniga waxaan noqday qofkii labada dhinac ka gubtay habeenkii dambe waxaan wacay Shamso nasiib wanaag way iga qabatay dhowr su'aal ayaan weydiiyay balse waxay igu jawaabtay dulli ma noqdaa tuurka maan maraa dugaagta miyaa la darsaa waxaan ku dhahay erayadan maxaad ka wadaa waxay igu jawaabtay Faadumo kuma jecleen telefoonka darta ayay u damisay waxaa loo wareejiyay afkooye mana soo laabanayso qofka daacadda ku ah waa aniga oo ah Shamso ku soo bir page-ka Kulmis channel oo follow dhaho haddii aad horey nala joogtayna laakiin oo saar muuqaalka siina share gareeya la soco qaybta 3 mahadsanid